hooyo ma jirto laakiin dadku way kala bedelan yihiin hooyada way ku kala bedelan yihiin hadba abaalka ay ku leedahay iyo dowrka ay ku leedahay markay dhashay kadib ayay dadku ku kala bedelan yihiin anugu xamza ahaan waxaan ku jiraa dadka hooyadu ay micnaha gaarka u leedahay sababtana waa ii sheegaan anugu waxaan ahay qofka ugu yar reer waxaan ahay yaraan qofka iigu soo xiga walaaladay wuxuu iga weyn yahay dhowr iyo 10 sano waana gabadh halkaas gabadh bayna hooyadii dhashay iyo aabahayba dhowr iyo 10 sano aabahay hooyaday iyagoon dhalin baa aniga lay dhalay aabahay markaan dhashay uu dhintay Allah naxariisto marka ma garanayo aabahay suuradu lahaa iyo suu eg yahay ma garanayo aniga ma aqaano marka hooyaday baa aniga soo korisay waxaan ahay habar koris waxaan aaminsanahay inay ii soo korisay sida ugu fiican oo ilmo loo koriyo waxaan aaminsanahay hooyaday inay wax ii bartay sida ugu fiican ee ilmo wax loo baro hooyaday waxay quraanka i xifdisiisay oo quraanka lay baray oon xifdiyay anigoon 10 sano gaarin hooyaday waxay ku dadaashay inaan wax barto waxaan ahay qofka kaliya oo walaaladeeda iga waaweyn familka academic noqday oo waxbarasho sare aaday oo bartay baan ahay aniga hooyaday Allah naxariisto duruufo aad u adag ayay la soo martay laakiin aniga si waxa ii korisay aad u qurux badan ay ii korisay Ilaahay u naxariisto waan ka duwanahay marka wiil ama gabar aabahood iyo hooyadood ay soo wada koriyeen anigu waa ka duwanahay sidaa darteed hooyo waxay ii samaynaysaa aniga micno gaar ay leedahay oo ka duwan dadka kale ama dadka ay micnaha gaarka u leedahay baan ku jiraa hooyaday waxay dhimatay sanadkii hore 16kii February maalinkii hooyaday dhimatay هلا هذا runtii maalin xanuun badan bay ahayd waxaanan ogahay qiimaha ay hooyadu leedahay aan ogahay walaalaan nahay koox walaalaa oo aan saa idiin sheegay anigu aad ugu yarahay laakiin hooyadii ayaa isku kaaya haysay waxaana laga xukumay hal meel waxaan nahay famil aad isugu dhow oo ay hooyaday naga dhigtay inaan aad isugu dhownahay dhammaantayo waxaan ku qasbanaa waxyaabo badan oo ay hooyaday igu qasabtay inaan walaalahay u sameeyo oo aanan xeerar baa yaallay aanan ka gudbi karin dhinacna uga gudbi karin oo ay hooyaday noo dejisay si aan u noqonno walaalo isugu dhow markii ay hooyaday dhimatay cabsi badan waxay runtii aan ka qabay inaan kala dhunno aniga walaalahay oo midkayaba dee gaar u foofo iyo reerihiisii uu ku aaday iyo wixiisii
waxaa ilaahay mahadiya walaashay baa noo bedeshay ayadaa iminka isu kaaya haysta booskii hooyada ayadaa gashay sidaa darteed waxaan rabaa inaan aan idin sheego hooyadu aabbaha la mid maaha way ka fiican tahay way ka muhiimsan tahay reer aan hooyo u joogin reer ma aha agoonka rasmiga ah waa qofka hadduu rabo aniga hala ekaada aan hooyo lahayn weligay ma dareemin aabbo inuu iga maqan yahay laakiin markii hooyaday anoo intan leeg ay baxday waxaan dareemay hooyaday inay iga maqan tahay intaas markaan ka gudbo oo runtii dareen adag leh hooyada Soomaaliyeed ama gabadha Soomaaliyeed meydaan kasta oo la taagan yahay waxay leedahay micno aynan adduunka inta kale wax badan kaga bedelan tahay marka la joogo dhaqaalaha qoyska waxaan ognahay gabdhaha Soomaaliyeed waa warshada wax soo saarka dalka waxaana idinku filan halkan horteena waxaad ku soo marteen waxay soo saaraan weligood ma aha hadda inay bilaabeen saasun buu ahaa waxa shelterka aan ka dhigano ee gurigeyno ah hooyada Soomaaliyeed baa samaysa weligeed sameyn jirtay dhaqaalaha reerka ayadu ku tiirsanaa qoyska ayadu ku tiirsanaa waxay arrintaasi aad u soo baxday markii aan qaxnay ee dadkeenu islaayay ee burburku dhacay kaalinta hooyada ee raggi shaqo waayeen ee waxba qaban waayeen ee guriga soo wada fariisteen qofka farsamada yaqaanay ee loo baxsaday ee ilmaha hayay ee soo koriyay ee la rafaaday ee la balanbashay hooyay ahayd ninka ma ahayn waxoogaga inoo soo haray dadka ee dhalinyaradaas maanta meeshaas buuxda hooyo la'aanteed balaayadii bay raaci lahaayeen ayaka halkaas inoo soo gaarsiiyey gabdhaheena Soomaaliyeed marka la gaaro dalka yaa difaaca waxaan ognahay inay taalooyinkoodii meel walba ku yaalaan waxaan ognahay kaalintay ku lahaayeen heesihii halkan aad ka wada maqlayseen sideedaba ninayna gabari daba taagnayn weligiis ma diririn guulna ma gaarin dhibaatooyinkii ina soo gaadhay 30 sano ee soo dhaafnay saamayn aad iyo aad u dhib badan ayay ku yeelatay hooyada Soomaaliyeed dhibaatooyin badan baa ka soo gaaray dadkoo dhan dhibku waa soo gaaray laakiin ayagu waxay ahaayeen darafka ugu nugul ee dhibaatadaas ka soo gaaray ilmiheedii baa ku dhintay ilmaheedii baa ku agoomoobay odaygeedii bay ku weyday sidaa darteed waxay noqotay keligeed inay ku rafaado reerkii iyo dhaqaalihii reerka iyo ilaalintii reerka iyo ilmaha marka hooyada dhibaatada ugu weyn ayaa ka soo gaadhay waana mar kasta oo ay civil war dhaco oo dhibaatooyin dhacdo gabdhaha Soomaaliyeed ama gabar kasta oo adduunka joogta dhibaatada ugu weyn ayaa ka soo gaadhay marka waxaan qirsanahay dhibaatadii ay colaadda Soomaaliyeed dhexdeeda ka dhacday gabdhaha Soomaaliyeed ay ku reebtay waxaan nasiib darro ah inay weli qaar ka mid ah sii socdaan mar kastana annagoo rag ah aan mas'uul ka nahay inaan maalin walba gabar 10 ciyaar qaarna xambaarsan qaar gacmaha ku wadata oo sii qaxaysa oo Soomaaliyeed in adduunka laga daawado waa nasiib darro ayaan darro weyn oo raggu sababo waaye oo aan anigu qirsanahay marka gabdhaha Soomaaliyeedna ku dhacda waan uga mahadcelinaynaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu gabdhaheena Soomaaliyeed uu nasiiyay oo sidaas u kartida badan oo sharafta iyo qiimaha leh waan idinka mahadcelinaynaa idinkoo gabdhaha runtii waxaan rabaa gabdhaheenu maxay u baahan yihiin gabdhaheenu waxay u baahan yihiin nabad gabdhaheenu waxay u baahan yihiin cadawga maanta jira in ay hurmud ka noqdaan in aan dalka ka saarno dalka aan nabad ka dhigno dalku uu nabadgelyo yeesho gabdhaheenu waxay u baahan yihiin in ubadkoodu wax bartaan waxay u baahan yihiin inay shaqo helaan waxay u baahan yihiin in infrastructure-kii iyo dhaqaalihii dalka la dhiso waxay u baahan yihiin midnimo iyo in dadku isu soo dhawaado
waxay u baahan yihiin walaaltinimo iyo dadka Soomaaliyeed inay isu yimaadaan waxaan hubaa inaad kaga jirtaan kaalinta koobaad waxaan idinka codsanayaa sida aad halkudhaga wiigii hadda soo socda uga soo shaqeynayseen oo garanwaa rasmi magac fiican ay la heleen garanwaaga iyo qodxaha iyo abeesooyinka inoo daasan guryaha in aad guryihiina ka soo saartaan wixii hadda ka dambeeya waxaan si xoog leh ugu soo jeedsan doonaa magaalada Muqdisho haddii Ilaahay yiraahdo gobolka Banaadir booliiska nabad sugidda iyo xukuumadda oo wasiiradu ay hor kacayaan aniguna aan ka mid ahay waxaan xoog saari doonaa magaaladan